weli waxaanu ku sugannahay oo aan idinkala soo warramaynaa furmaha hore ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaanu ku warbixinaynaa howlgallada ugu dambeeyay ee xalay ilaa saaka ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe iyo gobolka Shabeellada Hoose howlgalkii ugu horeeyay ciidan deegaan ayaa xalay waxay ku qaadeen deegaan lagu magacaabo Boos Caduur oo hoostaga degmada Aadayabaal halkaas waxaa lagu dilay laba dhaqarqabe oo ka tirsan maleeshiyaadka sidoo kale waxay hore u sii qaateen ciidanka deegaanka oo howlgalkaas fuliyay labadii qoray oo ay wateen dhaqarqabayaashaas sidoo kale xalay saq dhexe waxaa howlgallo aad u xoogan lagu qaaday deegaan lagu magacaabo Geelgub iyo Burashiq guud ahaan waxaa cagta la marshay maleeshiyaadka ku sugnaa Geelgub iyo Burashiq waxaana halkaas looga dilay in ku dhow 40 ka tirsan maleeshiyaadka qawaariijta sidoo kale ciidanka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa halkaas ka soo furtay hubkii ay wateen maleeshiyaadka arxagatan ee qawaariijta sidoo kale waxay halkaas ku gubeen gaadiid ay wateen maleeshiyaadka qawaariijta sidoo kale saakay waxa weer culus lagu qaaday deegaanada lagu magacaabo Sabiib iyo Caanoole halkaas oo cariga dhul ay ka weerareen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana halkaas lagu gaarsiiyay maleeshiyaadka qawaariijta jab xoogan guud ahaan Soomaaliya howlgal saf ballaaran ah oo lagu ciribtirayo maleeshiyaadka qawaariijta ayaa ka socda Saadam Cabdulla Siyaad warbaahinta qaranka Soomaaliyeed gobolka Shabeellada Dhexe